kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh ee ku xiran bartan YouTube-ka ee Idaaja Media kuna soo dhawaada barnaamijkan xiisaha leh ee aan uga hadlayno dhacdooyinka iyo wararkii ugu dambeeyay guud ahaan doorashooyinka ka socda dalka. barnaamijkan oo aan ugu magac darnay ama waa lay dooran ama daadku iqaad qodobada aad ku maqli doontaan ayaa waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed oo wacad ku maray inaysan doorasho ka dhici doonin deegaanadaas ilaa laga soo daayo Mukhtaar Roobo oo dawladda u xiran. odayaashaasi go'aankooda maxaa xilligan ku soo beegay muxuuse yahay qorshaha dawladda ee ku aadan go'aankaasi. waxaad barnaamijkan ku dhegaysan doontaan warbixino dheeraad oo ku saabsan dhacdadaasi. waxaad kaloo barnaamijkan ku dhegaysan doontaan wafdi heer federaal oo guddiga doorashooyinka ah oo gaaray magaalada Baydhabo iyo waxa uu yahay ujeedka safarkooda. beesha caalamka oo digniin culus kuna saabsan doorashooyinka u jeedisay dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira. waxay tahay digniintaasi iyo cabsida beesha caalamka ay ka qabto doorashooyinka ka socda dalka. madaxweynaha maamulka Jubbaland oo sheegay in maamulkiisii uu dalka ka saaray hubanti la'aanta qabsoomida doorashooyinka dalka wuxuuna ammaan u jeediyey cid kasta oo kaalin ku lahayd qabsoomida doorashooyinkaasi. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijkan ku dhegaysan doontaan daawade mar kale ku soo dhawaada barnaamijkan. debitaatina noqda baan doonayaa dawladdu aan ka qayb gala baan doonayaa sidayaa igu diidan dadow ama waa lay dooran ama daadku iqaadiye ama waa lay dooran. aan ku bilaabay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdicasiis Laftagareen ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku xiray shuruud adag taasoo ah in deegaanada maamulkaasi aysan doorasho ka dhici doonin ilaa la soo daayo Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ku dhawaad 3 sano u xiran dawladda waqtigeeda dhamaaday. odayaashan oo soo saaray shuruudo ay ku xireen in koonfur galbeed lagu qabto doorasho waxaana shuruudahaasi ka mid ah in la sii daayo Mukhtaar Roobo iyo in ra'iisul wasaare Rooble guddi xaqiiqo raadina u magacaabo xaalado isqabqabsi ah oo wali ka taagan deegaanada maamulkaasi. malaaqilyaas oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo la hadlayay BBC ayaa faahfaahin ka bixiyay shuruudaha ay ku xireen doorasho ka dhacda deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo rabitaankooda siideynta Mukhtaar Roobo oo Muqdisho ugu xiran arrimo siyaasadeed kaasoo aan marna maxkamad la soo taagin. malaaqilyaas oo arrimahaasi BBC-da laanta af Soomaaliga ugu waramay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa Mukhtaar walaa horta waa afduuban yahay mexirna ma hal maalin lama soo saarin maxkamad cadaaladna ma aan helin asigoo musharax ee la soo afduubay uu xiran yahay maadaama dhibaato saas ay u dhacday waxaan u soo saarnay in doorasho xor iyo halaal ay ka dhici doonin oo dhibaato ay taalo ninka meesha fadhiyo uu dhiig ku fadhiyo taas baan ugu soo saarnay. waxaan codsanaynaa inuu guddi farsamo la soo saaro ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo asaguna uu guddi u diro dibashiisiin lagu qabto inaan Mukhtaar la soo deynin dibashiisiin la qabanin meesha. si kastaba ha ahaatee waxaa taliska farmaajo laga sugayaa inuu ka jawaabo xabashada odayaasha maamulka koonfur galbeed si ay deegaanadaasi doorasho uga dhacdo. debitaatina noqda baan doonayaa dawladdu aan ka qayb gala baan doonayaa debitaatina noqda baan doonayaa dawladdu aan ka qayb gala baan doonayaa sidayaa igu diidan dadow. sida aan la soconno doorashooyin hordhac ah ayaa waxa ay ka dhaceen maamulka Jubbaland doorashadaas oo lagu soo doortay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. haddaba madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa guul weyn oo ay gaareen ku tilmaamay in ay Soomaaliya ka saareen hubanti la'aanta ku saabsan doorashada dalka ee muddada dheer soo jiitamaysay. madaxweynaha Jubbaland ayaa u hambalyeeyay xildhibaanada cusub ee loo doortay aqalka sare ee baarlamaanka kuwaasoo ah kuwii ugu horeeyay guud ahaan dalka iyo gaar ahaan kuwa Jubbaland laga soo doorto. waxay tani ka dhigan tahay in dalka uu doorasho aaday iyadoo qaybaha kale ee dhimanna aan ku rajo weynahay in xilliga dhow ay soo qabsoomi doonaan ayuu yiri madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa u mahadceliyay dhammaan gudiyada doorashooyinka guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland iyo dhammaan cid walba oo kaalin ku lahayd qabsoomida doorashooyinkaasi.
ama walay dooran ama dadku qaadiye ama walay dooran ama dadku qaadiye sida aad ku soo maqasheen hordhaca warkeenna war saxaafadeed wada jir ah oo ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa looga hadlay doorashada Soomaaliya qoondada haweenka iyo baaq ku socday madaxdii ku heshiisay qabsoomida doorashooyinka dalka ugu horreyn war saxaafadeedkan ayaa lagu soo dhaweeyay horumarkii laga gaaray hirgelintii heshiiskii 27 May ee sanadkan ee dalka u horseeday dhabaha loo mariyo qabsoomida doorashooyinka Soomaaliya saaxiibada caalamka waxa ay soo dhaweynayaan horumarka laga sameeyay hirgelinta heshiiskii 27 May ee ay wada saxiixdeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxayna ugu baaqayaan dawlad goboleedyada in si aan dib u dhac lahayn ay u abaabulaan doorashooyinka aqalka sare oo ahayd inay bilaabato 25 bishan ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi waxaan ugu baaqaynaa in shaqada harsan lagu soo gunaanado geedi socodka doorashada in loo qabto si degdeg ah waliba waafaqsan heshiiskii laga gaaray ee ku saleysnaa is-ogolka arrimaha doorashooyinka debitaatina noqda baan doonayaa dawladdu aan ka qayb gala baan doonayaa sida yaa igu diidan dadow ama walay dooran ama dadku qaadiye qodobka ugu dambeeya aan barnaamijkan ku soo qaadan doona ayaa waxa uu yahay waxa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed gaaray wafdi ka socday guddiga hirgelinta doorashada heer federaal waxaan halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta magaalada Baydhabo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Mawlid Mataan ayaa wafdigan ka socday guddiga doorashooyinka heer federaal hogaaminayay guddiga ayaa ujeedka ay halkaasi u tageen waxa uu yahay dardargelinta howlaha doorashooyinka iyagoo sidoo kale halka ka bilaabi doona kulamo ay la yeelan doonaan odayaasha dhaqanka maamulkaasi iyo madaxda kale waxa la filayaa in maamulka Koonfur Galbeed u guda galo doorashooyinka xubnaha aqalka sare kuwa oo ka mid noqon doona baarlamaanka soo socda iyadoo wali saansaan doorasho aysan halka ka muuqan maadaama odayaasha maamulka Koonfur Galbeed ay go'aan ku gaareen inaysan doorasho dhici karin ilaa laga soo daayo Mukhtaar Roobow oo dawladda u xiran debitaatina noqda baan doonayaa dawladdu aan ka qayb gala odayaasha qiimaha iyo qayaha naga mudan waxa halka inoogu eeg barnaamijkan inta aan ku kulmayno barnaamijka xiga idaaja oo idin la sidaasi nabadgelyo si aad ula socoto barnaamijyadan xiisaha leh fadlan subscribe saar gambaleelka taabo asxaabtaada ku sheer gare